taalada sayidka waxay ku taallaa degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho waxayna ku hor taallaa xarunta golaha shacabka waxayna kaabiga ku haysaa masaajidka isbahaysiga taalada sayidka meel caan bay ku taallaa oo sayidka la yidhaahdo waad garanaysaan taalada waxa la dhisay iyadana 1974 ayaa la dhisay si loo maamuuso ama astaan loogu sameeyo halgankii dheeraa ee sayidka ama daraawiishta waxaan leenahay taalla taariikheedyadu waa wasiilada ugu muhiimsan ee xilli kasta ka turjumaya ujeedooyinka dalka iyo dadku ay leeyihiin yacni taalladani waa tusaale ama waa wasiilo dadka lagu fahamsiinayo xilliga la joogay marka taalladu waa inay ka turjunto wax la wada leeyahay yacni maynboontiyada ama meelaha gaarkeen rabna inaan isla fahanno waxa waaye taalladani macnaha ay ku fadhido waa hawl wadareed waaye ama waa shaqo wadareed waaye kadibna waxay noqonaysaa sharaf wadareed ayay noqonaysaa sayidkuna bartiisii odayadii badheeriyo baylcaddii nugaaleed beratankii daraawiish bafta labada qayd iyo kuwa calanka boodiya birlibaaxda wadan jiray dadka qaar la boobiya calibaysteenka baasha ah in macooda laybado kuwii damacooda baajiyey oo u badheedhay reer yurub barqadii koofilaan dilay iyo ma irlaawin beerdhiga taaladan qiimaha badan ayaa dhowaan dhismaheeda soo dhammaystirmi doona astaantii lagu yaqiinayna la saari doonaa dhowaan waxaana qof waliba waajib ku ah inuu daryeelo isla markaana ilaaliyo astaantan qiimaha badan ee qaranku leeyahay dalka waan wada leenahay waana inaan ilaashanaa xarumaha danta guud iyo goobaha taariikhiga ah